munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen ardayda dhamaysatay fasalka afraad ee dugsiga sare ee Ifgrin Balcad ayaa waxa ka soo qayb galay aqoon-yahano waalidiinta ardayda qalin jibinaysa culimaadudiin ee qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Balcad ardayda ka qalin jibinaysa dugsiga sare ee iskuulka Ifgrin ayaa la guddoonsiiyay abaalmarino lagu dhiirigelinayo maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Ifgrin Balcad oo munaasabadan soo qaban qaabiyay injineer Cismaan Maxamed Mukhtaar Julius ayaa ku dhiirigeliyay ardayda inay si wataan waxbarashadooda iskuulkan waxa la aasaasay sanadka markuu ay 1993 habka loo aasaasay waxa ka sheekeeyay ardayda ka sheekeysay dadkii aasaasay ayaa aniga kamid ahay waliba especially aniga waxa way ninka loo doortay inuu waxbarashada qaybteeda qabta aniga ahay alxamdulillah waxa way dugsiga sare maanta waxa mareynaa dufcadii 15aad waxaan la hadlaa ardadan la hadlaa you approach the door of knowledge waxaad u dhawaatay albaabkii waxbarashada u dhawaatay ma aha albaabkii inaad gashay ma hada isu haysato inaad qalin jibisay oo dugsi sare ka baxda soo haysato maya waxaad u dhawaatay albaabkii waxbarashada u dhawaatay ma hayne hatta ma galin wali waxaan ku adkeeyaa ardadaas maadaama albaabka ay u dhawaadaan inay galaan albaabka waxbarashada inay galaan si ay uga meer dhaliyaan ujeedkoodii aha inay wax bartaan ay adduunka wax ku taraan dadkooda wax ku taraan diintooda wax ku taraan waalidiintooda wax ku taraan kuwa ka dambeeya wax ku taraan ujeedkooda intaas soo ahay si ujeedkaas loo gaar waxa way in albaabkii la galo way albaabkii maxaa loo galaa waxa la galaa jaamacadda la galaa qaar ka mid ah ardayda ayaa soo bandhigay aqoontooda oo ay ka barteen iskuulka iyagoo ku dhiirigelinaya dhalinyarada iyaga la midka ah I wanted to suggest here an important topic about peace. Peace is the only desire for Basman and the universe in a peaceful environment. All good things are possible. Whereas in absence of peace, we cannot achieve anything for a positive nature, either as individuals or a community or even at the national or international level. Subhan iftiimay suugaan baa idin sida oo ku saabsan Ifgrin suuradii iskuulkeena waa sooyaalkii aqoonte u garaaca sacabka iskuul lama simaye iskuulada buusita Ifgrin waa sumadii aqoonte saadiri noogu deeqay u garaaca sacabka Abduqaadir Maxamed Cismaan Jeestole oo ka mid ah waalidiinta ardayda iskuulka wax ka barata iyo Axmed Maxamed Cali Sani oo ka mid ah aqoon-yahanada degmada Balcad ayaa ugu dambeyntii munaasabada ka hadlay iyagoona dhiirigelin u jeediyay ardaydii qalin jibinaysay Ifgrin uu yahay kobciyaha soo saaraha dhalinyarada soo saara ee u diiday in uu dirbi fadhiisto ama uu maxuu ahaa qori iyo maxuu ahaa mooryaan noqdo waa iskoolka kaliya u diiday ogow cunugaaga marow ku baahan yahay haddaadan u hiilin ilaahay hortiisna waa kugu qabsanaya sababtoo cunugaaga wuxuu xaq kugu leeyahay barbaarin iyo waxbarasho xaq kugu leeyahay inaa intaas ka bixisa haddaad ka bixin weyso cunugaaga weliba aad kala filisho oo aad gabdha inta tiraa gabdhaha guriga ii jooga wiilashana waxbarta aad tiraa Cabdullaahi Maxamed Xasan Somali News TV Balcad